السلام عليكم. قصة أدوية بدن وقصة استغفار تفضل إلى هاي هي السيدة أفرطه الباب كستوى حرمه. قصة waxay ku dhacday Imaam Ahmed ibn Hanbal alayhi rahmatullah. Wuxuu yiraahdaa Ahmed ibn Hanbal anigoo safara oo meel u socda waxaan ku soo dhalmaday magaalo masaajidkan ku tukaday kadib waxaan damcay inaan seexdo masaajidka maadaama magaalada qofna aan ka aqoon. ninkii muadinka ahaa ee masaajidka muadinka ka ahaa markii salaada laga baxay wuxuu yiri bax masaajidka waan xiriyaa. waxaan ila warnayaa masaajidka waxba kuma sameeyay aniga halka ma iska saxnay waa iga diiday muadinkii masaajidka waan qufulaya ka baxay way iga saaray. banaankan u soo baxay anigoo meel u dhaqaaqa garan la nin baa igu soo baxay wuxuu yeena mari. ninkan wuxuu leeyahay meel uu ku dubto canjeelo ama laxoox oo halkaas uu ku haysto. ninkii baa geeyay xafadiisii meeshu wax ku dubanayay. halkii baan habeenkii la bariyay ninkan wax dubanaya habeenka dhan wuxuu ku celceliyaa astaghfirullah alxamdulillah allahu akbar laa ilaaha illa allah. habeenka dhan shaqada uu waday inta shaqada uu ku jiro afkiisu mar kama madho. kadib waag markuu badiyay waan u yeeray ninkii waxa yiri neew arintan maxay tahay sameynaysa xaleen ku arkay. wuxuu yiri kama bazuula arinkan markasta sidan baan yeelaa aniga shaqadeedu waa sidan. waxaan ku yiri waayahay ma ka aragtay wax faa'iido ah istighfaartan habeen iyo maalin dadalayso. ha ayuu yiri weliga ilaahay wax ma weydiisanin ilaa wuu isiyaa waxaan weydiistay hal duco kaliya laga aqbalin buu yiraahday buu dhahaa. أحمد بن حنبل ويا وحيي محيط هالك دعاء إن الله كل ما أحمد بن حنبل عليه رحمة الله أي وجوه منك عن جلد دبي كدي أحمد بن حنبل الله أكبر أيويري كدي بحوراي أنا باليسو كجدي بيري هو استغفرت أنا تاي ودوين كفرجك. السلام عليكم ورحمة الله.